Muddo 2 bilood iyo dheeraad ah oo la la'aa Ekraan Tahliil Faarax ayaa waxay dowladda Soomaaliya gaar ahaan hay'adda NISA ay shaaca ka qaaday in ay Ekraan Tahliil Faarax ay dileen Al-Shabaab sida ay sheegtay iyada oo warbixintaasi ku soo dartay in ay toogteen Al-Shabaab oo muddo gacanta ugu jirtay sida ay sheegeen waxayna hay'addu sheegtay inay uga tacsiinayso eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyootay bay dhaheen iyo waliba ummadda Soomaaliyeed warbixin ay soo qortay hay'addan uu shaaciyay TV-ga qaranka iyo waliba raadiyaha dowladda Soomaaliya warbixintaasi kadib markii ay soo baxday waxaa falcelin weyn kala kulmay baraha bulshada iyadoo lagu eedeeyay dowladda Soomaaliya in ay Ekraan Tahliil iyadu dishay ama hay'adda nabad sugidda gaar ahaan taliyaha hay'adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir wararka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan inay haddaba socdaan abaabulo xoogan oo lagu dalbanayo in Ekraan ay cadaalad hesho markii Ekraan la afduubtay ayaa waxa ay soo baxayay tuhunno kala duwan oo ay ka dambeeyay baa leeyahay inay hay'adda nabad sugiddu ay halkaasi iyadoo ka dambeysay muddo 2 bilood iyo dheeraad ah oo la raadinayay Ekraan Tahliil ayaa waxaa la sheegayaa in dowladda Soomaaliya gaar ahaan hay'adda NISA ay ka dambeysay falalkaasi sida ay sheegayaan qaraabadeeda iyo waliba dadka ag dhow hay'adda NISA waxaa la soo sheegayaa in ay Ekraan ay haysay baa la yidhi xog ku saabsan dhalinyarada loo qaaday Eritrea iyo waliba kiiskii gudoomiyihii gobolka Banaadir Yariisow oo muddo iyadu ay la shaqeynaysay wararka intaas waxay ku darayaan in taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Fahad Yaasiin inuu ka dambeeyay dilkaasi iyadoo oo la sheegayo inuu Ekraan uga wacay meesha ay joogtay baabuurna uu soo diray gabadhuna markii ay raacisay baabuurkaasi inay hooyadeed la hadashay sida hooyadeed galabta ay u sheegtay ilaacada VOA-da oo warbixino ka samaysay Ekraan Tahliil Faarax ayaa waxa ay tuhmo badan kala dhex dhigtay waayitaankeedu hay'adda Soomaaliya iyadoo oo si toos ah ay uga hadleen odayaasha iyo waxgaradka ay ka soo jeedo iyo waliba xildhibaankeeda oo lagu magacaabo Daahir Amiin Jeesow iyadoo oo sheegtay in ay aad uga xun tahay in Ekraan dowladda Soomaaliya ay afduubatay sida ay eheladeedu ay sheegeen Qaali Faarax oo ah hooyada dhashay gabadhaasi Ekraan Tahliil Faarax ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in ay Fahad Yaasiin shalay uu soo diray in gabadha nin ka tirsan hay'adda nabad sugidda uu sheegay inay afduubteen su'aalo badan ayaa dul hoganaya oo Qaali ay sheegtay waxaana kamid ah in ay Ekraan aysan meeshaasi aysan soo gaarin karin Al-Shabaab meesha ay ku sugnayd oo baabuurkii dowladda lagu qaaday wararka tuhmada kale ayaa waxa intaasi ku darayaan in ay Ekraan muddaba aysan la shaqeynayn hay'adda nabad sugidda oo ay ku maqnayd dalkaas Ingiriiska ay tababar ku soo qaadatay kadibna ay baryahanba ay iska joogtay gurigeeda oo ku yaala hay'adda NISA tuhmada kale ayaa intaasi waxay ku darayaan in Al-Shabaab in haddii la soo daayo baa la yidhi Ekraan oo ay dowladda Soomaaliya soo dayso in taliyaha nabad sugidda ay ceeb ku tahay sira badanna ay hayso iyadoo dowladda Soomaaliya uu gabaabsi yahay xilalkeedii oo la filaya in dowlad cusub la soo dhiso wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in hadda ay socoto qabanqaabo iyo waliba shirar looga tashanayo kadib geerida Ekraan ee dowladda Soomaaliya ay shaacisay xildhibaano iyo qaraabada ay ka soo jeeday Ekraan Tahliil Faarax ayaa waxa intaasi ku darayaan in ay warbixino diyaarinayaan oo dowladda Soomaaliya ay uga codsanayaan cadaalad abaabulo xoogan ayaa ka socda magaalada Muqdisho Nairobi iyo dalka dibadiisa kuwaas oo hadda la sheegayo in ay dowladda Soomaaliya looga tashanayo waxyaabihii ama dilkii Ekraan waxa ay ka ogeyd taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo qaranka Soomaaliya ninka lagu magacaabo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa hadda la soo sheegayaa in ay ehelada ay ka qorayaan warbixino ay ku eedanayaan inuu ka dambeeyay dilkii ay loo geystay gabadhaasi lagu magacaabo Ekraan Tahliil Faarax oo ka tirsanayd hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliya wixii warbixina ee soo kordha waxaad ku maqli doontaan warbixinadeena dambe